Assalaamu calaykum. Maanta waxaynu dhigan doonaa casharkii saddexaad ee isu qaybinta tirooyinka. Haddaynu labadan calaamadood kala eegno, calaamadan waxaa loo isticmaalaa marka la isu qaybinayo laba tiro oo kale 8 iyo 2 tusaale ahaan ayaa la isticmaalaa. Calaamadan kale ee radicalkana waxaa la isticmaalaa marka la isu qaybinayo tirooyin fara badan. Tusaale ahaan 120 iyo 2 marka la isu qaybinayo ayaad radicalka isticmaalaysaa. Marka 120kii hoostaad gelinaysaa, tiradii badneed hoostaad gelinaysaa, tii yaraydna dibaddaad dhiganaysaa. Marka jawaabtan xaggaas la soo saaranaysaa oo labadan baad soo dhufsanaysaa sidee aynu soo aragnay. Haddana waan arki doonaa insha allahu. Haddaynu tusaalayaasha aynu eegno, afartan tusaalooyin bin maanta ka shaqayn doonaa. Tusaalaha koobaad haddaynu eegno 24 loo qaybiyay 3. Waxaan samayn doonaa marka hore radicalkii baynu sawiranaynaa, tiradii badneyd hoostaynu gelinaynaa 24, tii yareyd 3 dibadaynu dhiganaynaa. Marka waxaan raadinaynaa tirada marka 3 lagu dhufto 24 siisa waa 8. marka 8 baa 3 ku soo dhufsanayaa waa 24 ayay soo baxday. ii kala jar min 0 iyo 0 bay soo baxday. jawaabtu waa 8 xagga sare ku saaran. marka 8 bay qaybtood noqonaysa. tusaale labaad haddaan eegno 24 loo qaybiyay 3. waxaan sameynayaa marka hore radicalkii baad sawiranaysaa, tiradii badneedna hoostaad gelinaysaa 27, tii yareydna dibaddaad u saaranaysaa. marka tirada 3 marka lagu dhufto 27 siisaad raadinaysaa waa 9. 9kii xagga sare dhigo, 9 3 kusoo dhufso waa 27. waad soo kala jaraysaa. markaa waxaa kuu soo baxaya eber iyo eber. waxay kula mid tahay jawaabtu xagga sare ku saaran 9ka ah. markaa 9 bay la mid tahay marka la isu qaybiyo. saddexaad haddaan eegno 32 loo qaybiyay 4. waxaad samaynaysaa radicalkii sawiro, tiradii badneed ee 32 hoosta gasho, tii yareydna dibadda u saar 4. markaa tirada marka 4 lagu dhufto 32 siisaa waa maxay? waa 8. marka 8 4 ugu soo dhufso waa 32. markaas soo kala jar dabadeed waxaa kuu soo baxaya eber iyo eber. jawaabtu waa xagga sare waad ku saaran 8. 8daas ayay jawaabtu kuu soo baxday. tusaalaha ugu dambeeya 36 loo qaybiyay 4. waxaan sameynaynaa radicalkii sawiro, 36kii tiradii badneyd hoosta ay geli, tii yareydee 4 dibadda ay dhig. tirada marka 4 lagu dhufto 36 ku siisaad raadinaysaa waa 9. 9 xagga sare saar, 9 4 ugu soo dhufso waa 32. 32 iyo 36 soo kala jar waa 0. jawaabtu waa xagga sare ku saaran 9kaas ayay ku soo baxday xagga sare saaran. insha Allah maanta halkaas ayuu casharku uu nagu eegyahay. waa inoo iyo casharka labaad iyo bari iyo xisaab kale insha Allah.